بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda muslimka gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan fiidiyo aanu qalmin daawasho aanu qalmin in ummad loo soo bandhigo aanu qalmin in tafaasiil laga bixiyo aanu qalmin in dad muxtarama oo karaamo leh lagu gafo ayaan rabaa dadkan qaatay ee imika maxaa social media aadka ugu jira ee ilbaxaysmooday ee waxa ay ku qaldayiin iyo waxa ay ku saxsan yihiin aan kala garanay iyo waxa u wanaagsan iyo waxa maxay ahaydee u xun weligii iyo allah intaan noolaa fiidiyo aan daawado oo fiidiyo waa igaga xumaa ama igaga aragti xumaa ama igaga tilmaan xumaa ama igaga daawasho xumaa ama igaga muuq xumaa ma arag. waa laba doqon oo isu soo bahaystay oo isku soo bahaystay hooyooyinkay naasahooga soo jaqeen hooyooyinkay calooshooda maxay ahaydee ay dee in ilaahay kusoo dhex beeray ee maganaysaa uurka kusoo qaatay ee maganaysaa soo xambaartay ee maganaysaa dhabteeda kusoo barbaarisay ee maganaysaa dhabarkeega maganaysaa maxay kusoo xambaartay waxaan u qalmin maxay social mediaha siiba youtube-ka siiba tiktok muxuu ahaa tiktok-ga waxaan la yidhahdo u mariyey oo ka afligaadiyey halkan niman aftiyaashood afligaadiyey dee maxay haydey maxay haydey Soomaalidu waxay ku maamuli jirtay oran jirtay hooyo waa maxay haydey abti waa maxay haydey abti waa hooyo aan naasa lahayn oo qoysku hooyadoo kale abtigu kuugu jira qofkuna sidiisaba loo faamili ayaa laga yaabaa qofka bini'aadankaay inuu ilaahay ka dhex beero laba qolo oo kala duwan ama laba qabiil oo kala duwan oo kala cid ah. xaqu aabbaha kugu leeyahay hooyada way kugu leedahay xaqu adeerkaa kugu leeyahay abtigaa wuu kugu leeyahay tolkaad ku abtirsanayso dhankan kale abtiyaashii baa kuu jooga habaryarihii baa kuu jooga ehelkay dhaleen oo dhan baa maqanaysaa dee waxaad noqonaysaa qof laba tol leh. bal Soomaaliyeyn labadaa nin ee waaweyn waxay isku bahaysteen bal halkaa ila daawada waxay ku hadlayaan caqligooda maskaxdooda. marka imika way daawanayaan war adiga qofkii igula ciyaaray dib iyo daaro ee daaro sheeganaya weliba soo sheegay iyo aad loogu yaqaan ee wada garanaya waniyaani kiisa kay bixinayo isla cabdiyaale tahay dib noo ciyaaraya kaalayo faan waa yaa waxa sidii kaan faan iyo kamaqaaya كل ما بدأ شيء شوي يا كمسار وجود ما وده ما بدأ فاهم مبلغ يا كني وصاع يا وحاج لايكين كان أنا يكفن حاجة تتهجم السوشيال ميديا ولا حاجة صغيرة تتهجم ولا سبب ذلك مانشستر يحكم labadan nin ninka aan ku hayo mooska aan ku hayo markaysane Idris Lacabdi sheegta ee youtuberka wuxuu yiri waxaan ahay nin dira kow abiiba dira malaha sidoo sheeganaya dee u leeyahay nin dira baan ahay ku leeyahay kow ninkan kalena isna wuxuu la sheeganaya u leeyahay nin dira baan haysna tan wuxuu leeyahay waxa ay rabtiya oo dhalay rag halkan ka caayay oo halkan ka aflagaadeynay oo halkan dee maxay ahaydee wax ku gafayo maxay muxtaramkii ay ka mudnaayeen ama karaamadii ama milgihii ay ku laayeen ee abtinimo halkan ka aflagaadeynay
absama ay dhalay buu leeyahay absama daarood kan kalena wuxuu leeyahay harti daarood baa dhalay buu leeyahay harti baa i reer abtiya dhan laba nin habro wadaagay ka noqonayaan dhanna laba nin dira bay sheeganayaan dhan waxay caayayaan waxa weeye waa hooyooyinkii dhalay iyo dee faamiliyadii kasoo jeedeen waxaasoo kalena caqli ma aha maskaxna ma aha waxay igu kalifay videoga inaan ka hadlo waxay damqay dareen bay damqay aniga markaan arkay wanu dul qaadan kari waayo waxay damqay naaskan hooyadii kasoo jaqay waxay damqay dhabtii hooyadii aan kusoo ciyaaray waxay damqay dhabarkii hooyadii aan soo fuuray waxay damqay wanaaggii iyo muxtaramkii abtiyaashayga mudnaayeen waxay damqay qiimahay agteeda ku lahaayeen bay damqay qofku markuu abtiyaashii garanayo waxay ka galaan iyo waxay ka gudaan agtiisa iyo qiimaha iyo qaayahay agtiisa ku leeyihiin ayuu qiimayn karaa qofkuna sidiisaba hal faamili kama soo jeeda laba faamiliba qofku kasoo jeedaa oo ilaahay ka dhex beera wuxuu ka dhex beeray faamiliga aabbaha iyo faamiliga hooyada labaduba waa faamiliga qofka noqonaya xaggan kale waxaa ku jooga cayladii abtiyaasha dadkii ay dhaleen ehelkii carruurtay habreeraha dhalaan oo aad habroodaagii noqonaysaan kuwa abtiyaasha dhalana oo aad ilma abtiya noqonaysaan xaggan kalena dee tolkii kale aad isku qabiilka ahaydeen aad isku abtirsanaysiin magaranaysaa dee markaad tahay qof ilaahay nimco siiyey laba qabiil oo waaweyn oo balballaaran markaad kasoo jeedo lacalla aad kasoo jeedo aabbaha yahay nin hawiyaa u yahay hooyada ay tahay maxay ahayd gabadh isaaqa maxay ahaydey aabbaha u yahay nin daarooda maxay ahaydey hooyada ay tahay maxay ahaydey gabadh maxay ahaydey hawiyaa dee differenceka waa inaad qiimuhu aabbaha agtaada ka leeyo kale ay faamiligii hooyada ahaydna ay ka yeeshaan soomaalidu sideedaba ma taqaano soomaalidu sideedaba waxay qiimaysaa faamiligay ku abtirsadaan qoryaata qiimeeyaan faamiligaad ku abtirsato qoryaata inaad qiimaysana maaha waxaan ummadda soomaali la yidhaahdo dhan qaribay ee baabiyey dhulka la dhacay waxa weeyaan labada waalidoo qof kasoo jeedaan u xaqsooreen qofkii kii uu ku abtirsanayay magaranaysaayee dee abtirsiintiisa uu sheeganayay magaranaysaa qabiilkiisa dee uu ku aroorayay oo qoryaata ku koobnaanaya wuxuu ka tegayaa oo halkan xaqa ugu duufsiyaya u daha saaraya kii kale ee magaranaysaa hooyadii ama abtiyaashii ama dee ehelkiisa kale kasoo jeedeen markaa bal aqoonyahanbu ayay raggan isbidayaan imanka rag kartilabay isbidayaan rag ficil muujinayabay isbidayaan ayay isbidayaan rag dad wax u tilmaami kara isbidayaan laakiinse aniga agteeda waxay ka yihiin rag dhooqa dhex galay rag doqoniimo dhex galay rag nacasnimo cagaha la galay rag aan dareenkoogu aanay ahayn inay dee waxaan milgaha ka geyin inay milgaha intaa la-eg lacalla mid aanay reerkan ay afligaadeynaya aanay dhalin ama aanay aftuu ahayn inay cayda usoo dhiibaan bay ahayd laakiinse ninka hooyadii caayaya ee abtiyaashii caayaya ee habreerihii caayaya dawaa la-aad caqli allaale iyo caqligu meel ku hayaa ma jirto waayo aabbahaayo quriyaatan dee maqaansa xaq kuguma leh faamiligii kuwa abtiyaasha ahaabaa xaq kugu leh dadkay kasoo jeedeen baa xaq kugu leh deegaankay u dhasheen baa xaq kugu leh dadkay ku aroorayeen baa xaq kugu leh oo ixtiraam kugu leh haddaad qof hal meeluun ku xidhan noqoto soomaali berigii hore waxay ku mahmaagi jirtay wiilkaaga maalin baad u hiidisaa haye maalintaad u hiidisaana waxa weeye waa maalintaad abtiyaashii aada u doorto abtiyaasha loo dooraya waa maxay maqaar kula faamiliya ama kula qoys ama meel kugula arooraya waa maya waa markaad abti laandheeraa u samayso ubadkaaga oo ka baxsan ciddii aad kasoo jeeday adigu waxaad u dhalataa laga yaabaa somaliland
adoo Somaliland u dhashay baad ubadkaagii abti uga samaysay Djibouti oo waxaad la xidhiidhay reer Djibouti danin waxaad noqotay ubadkiisa u hiiliyey oo abtiyaal landheeraa u sameeyey laakiinse markaad halkii aad ka imanaysid dib ugu aroorayso qabiilka aad ahayd iyo qabiilka gabadhaad ahayd ay isku meel noqdaan dee wax dhifrana oo maganaysa isbedelo sidaa u weyn oo maganaysa maxay ahaydey dee kala duwanaanshaha meeshii ma jiro laakiinse waxyaabaha kalgacaylka keena ummadda isku soo jiida dadka walaaleeya dadka maganaysa dee maxay ahaydey muxibbada iyo wanaagga ka dhex beeraa waa marka laba qabiil oo kala durugsan ay xididaan ee ay magaranaysaa gacal noqdaan ee ay magaranaysaa xidid noqdaan ee dad magaranaysaa milga iyo sharaf iyo karaamo iskula noqdaan bal iminka kuwan eeg kana abtigii buu caayaya caqligaasi xaguu ka jiraa Okay.
فالعيق wiilkan deeq la yiraahdo halkan kula jira ayaa wuxuu leeyahay daaradkeeba reerabta ku ah kabacdi markuu kelmadda weydiiyay kan dirisle leeyahay waan ka noqdayba inaan sheego daaradkii reerabtiga ay ahaa magana nin hooyadii la dagaalamay nin intuu dhagaxaan iyo hub soo urursaday iyo shiid iyo magana daadsaday iyo burriyo dee gurigii hooyadii shiidayuu biileeyay moogtay ninka abtiyaashii soo bahaystay intuu social media halkaa soo fadhiistay kamarad noo soo qaatay reerabtigii wallahi doqonnimo ka weyne ma jirto nacasnimo ka weyne ma jirto hadday dadku si walba isku dilaan ama si walba isku nacaan ama si walba dadku ay isku qabtaan haddana waa laga warwareegaa dadka wax ku ah siiba abtiyaasha reerabtiga intaad ka meeraysan karto ayaa maxay ahayd laga meeraystaa oo maxay ahayd jawaabtii lagulama degdego oo magaranaysaa de waxa Soomaalidu oran jirtayba wiilku kibirka ka bartaayo wiilku wuxuu kibirka ka bartaayo la oran jiray reerabtigii markuu la joogo ayuu wiilku kibirka ka bartaa oo maxay ahayd kiraan noqdaa oo reerabtigii wuxuu jabiyo wuxuu maxay ahayd wax yeelo wuxuu wax ku sameeyo intaba magaranaysaa waa wiilkii abtiga loo hayn bay yiraahdaan dee way ka bixiyaan oo magaranaysaa kooliyaan oo ilaaliyaan halkan kuwa adeerka kuwa maadirka tiin dhig iyo dhabanka lagu qaadayo ee magaranaysaa maxay ahayd dee hidhka lagaala daalayo waa wiilkii inantu dhashay baa la oranayaa daaya ma fahanti reerabtigu waxay yihiin qof garanayo baa yaqaan reerabtiga waxay yihiin qof garanaya ama ficiladooda soo arkay ama waxay galaan iyo waxay gudaan ba soo arkay ayuunbaa aqoon leh daarood Ismaaciil reerka la yiraahdaana nimay dhaleen ayuunba garanaya nim ay dhaleen unba garanaya dad abtinimada yaqaanayeen abtinimadooda gobonimatay dadkay dhaleen ay yihiin dad adduunyada magac ku leh oo karaamo leh oo caalamka magaranaysaa sheekh shariif yeeshay oo dad karaamo la yeeshay oo dad sumcad la yeeshay oo heer adduunyada ka gaaray marka labadan wiil habrudaaga midna harti daarood dhalay midna absame daarood dhalay magaranaysaa maxay ahaydey labaduba hooyooyinkood inay halkan ka aflagaadeeyaan iyo magaranaysaa dee habriirahood ay halkan ka aflagaadeeyaan oo halkan ka caayaan oo halkan ay uga dhurmaan isku soo bahaystay doqonnimada waxaan rabaa fiidiyogan aan maxay ahayd la ifkaygan aan soo galaan duubaya farinteedani inay u gudubto meel wal oo looga gudbin karaba waan maxay ahayd ka gaarsiinaya oo ugu gudbinaya waxaan rabaa fiidiyowga haddii soo gaaray inay maxay ahayd live-kaygaasi markuu u yimaado inay xaal golojooga ka soo bixiyaan arrintaa intay live soo galaan inay abtiyaashood ku gafeen
أي هبريره هود كوجفين أي المفتيود كوجفين هبروداجيود كوجفين ديجان كي يو أبتياش شود يو ديجان كي هو يدود كسو تشيدي أي محاي هايدي ميل خجل عين أو ده رجوا حتى خدمان ويس قبل شيء رجوا حتى ميل خجل عن قفكو جوي كسو نقول شيء أو ممكن سامحاي هايدي ده وحورن شيء والله نهاس لقى أما سدا ولما ننشيدين حتى هاس مرتي حتى دبعوه هاس وقد عين حتى سكرة آية هاي حتى خلضي أنا يقول بريدين وسكرة وقد عيا هاي أنت قورتي وحن تاريخ بيجلي الدنيا ده تسكسنا نحن مايا تسكو عفوا نقونيا وحن نقونيا دت جيل دمبي عكسي بيرمان بين نقونيا دت تاريخ مكان سا يمكن هو دلينيرو لكن سيبريتو لك مالين رجلو أبتر صدا أو يقول فيو ده مكان سا قبيلة بدل كسي بيرمان بين نقونيا رجل تاريخ ما داسي أي ده داتا وقصي أي تاريخ وقصي مكان سا نوع عن نقطينا وحويا وعيان درو ما فهمت مركا عقل حمضي سميين ينعس نيو تكلو حجرا تطبضن بعض صورنا محا ماشن سولي حقلي ماشن محا سولي حقلي محاي دادك أصهر فريسانيا تطبضن أو أن لوغو تلقلين إني دادك مغباعية أي أصهر فريستان أما دادك إني فرين سوق بيان وايو وحبا لوغو تلقرا شايبا لوغو تلقرا الدنيا دين علم بعلم بالي قلب بقفالي عينك بقعد بالي وحي أوان سلحين با ماذا يوم تهل سكودي قريني الدنيا ده انت النورا الإله بين يقول يا ريح قاسو حكو هذا ليانيك تذكي عاية واحد كنه هو يدي بعاية كنه هو يدي بعاية عندي عاية هو يبع متاسي Safi
waxaan rabaa heestan bal inay hadday caqli leeyihin wax ku gartaan suugaantana u soo raaciyey hadday garaad iyo caqli leeyihiin rag wax isbidayay raggu inuun maskaxdooda uun garaad how bal shaqaynaya hadday yihiin waxaan rabaa nimankaanu habarwadaaganay ee ku gafay abtiyaashood ee ma garanaysaa maxay hayday abtiyaashood meel kaga dhacay hooyooyinkood meel kaga dhacay nasabiyadii uurka iyo calooshaba kusoo qaadeen naaska soo siisay ku gafay inay xaal iyo boolasi ay ka bixiyaan oo ay magaranaysaa dee raaligelin inta goorgoortay waayo waxay noqonaysaa hiddaxumo ay noqonaysaa dad badan oo aan ficilkin gelin bay magaranaysaa karaama dhac ku ridayaan waxaan in layskula wada socdaa bay noqonaysaa in loo qaato annagu kulama soconno waxaan na gubay ee na gelgelaya ee nagu kalifay inaan jawaabtaan aan ka bixiyaaba waxa weeyaan dhaqan xumada idris lacagdi iyo deeqba waxaan leeyahay waxay yirugeeyi garatay ayaad garan weydeed caqliga iilantaasi yeelatee ayni dheertay ee ay iyadoo fanaanada ay ugu abaal gudayso wixii ay hibadeedu ahayd inay habaryaraheed suugaan maxay ahayday ama heesay qaadayso ay ku ammaanto dee waxa aynan taasoo dumaray ay garatay baad garan weyday ninko raga masal aad maxay ahayday kamarada soo hor fadhiisateen hooyooyinkiin iyo habaryarihiin inaad ka caydaan ka falgaadaysaan maxay ahayday dadkii milgaha inigu lahaa ee sharafta inigu lahaa ee karaamada agtiina ka mudnaa
nimayow soomaalidii hore ayaad moodaa wax walba inay sii tafaafuleen markay ay soomaalidii hore ku mahmaahday ay tiri ragna waa raggii hore hadalna waa intuu yiri waxaad moodaa dhalinyaradan dambe ee imika jiilashan dambe inay tafaaful uga sii tegeen sababtoo ah dadkii hore sidaan taariikhdooda aan ku maqalay ee la nooga sheekeeyey waxyaabo fara badan bay ka dhowrsan jireen ninku maxay ahaydee inuu reerku ka qabo maxay ahaydee xumaan looga geeyo wuu iska ilaalin jiray iyo magaranaysaa dhaleecayn iyo magaranaysaa ceebaal iyo magaranaysaa maxay ahaydee fadeexad iyo magaranaysaa wanaag mooyaan in lagu ammaano reerku xididka la yahay wanaag looga geeyo mooyaane seediyaashii iyo dadkaad gabadha ka qabo aad buu uga dhowrsan jiray in magaranaysaa wax magaciisa hoos u celinaya in looga geeyo carruurtu dhalana sidaasuu ku barbaarin jiray ubadku dhalana sidaasuu ku barbaarin jiray oo dee wuxuu oran jiray magaranaysaa maxay ahaydee dee inay wadadaa u aabahood maray oo kale inay maraan buu ku barbaarin jiray haddaba jiilashan dambe ee imka ee siiba ilbaxana isbidaya dadka cadaaladda leh ee isbidaya inay intaasoo 100 oo 1000 oo qof inay magaranaysaa maxay yiraahdaan dad caana baanay oo magaranaysaa youtuberaan oo magaranaysaa dad magaranaysaa mujtamac ku xiran baanay oo magaranaysaa maxay dad wax u bandhiga baanay oo aan waxba ka dhowrsanayn war qofka bilaadanka qabiil aan waxba kugu samayn sheekh shariif wal waxa laalay waxay ka xameeyeen waxa laalay waxay ka biyeen shakhsiyan adiga aan jirin inaad kamarad iyo magaranaysaa maxay haydey muuqaal intaad soo qaadato aad meel soo fariisato oo afligaade aanay ka geeyin ay afligaadeyso ay aanay ka geeyin oo aanay ka mutaysan aad caydo waxaanay ka istaahilin aad ku sheegto adigoo laga yaabo inaad gebigaaga uga raadinayso xoogaa yaro fiisa oo aad raadinayso gebigaaga uga xoogaa yaro dhaqaalaha ama xoogaa yaro hantiya aad qabiil dhan oo ilaahay karaameeyey aad karaamadoodii iyo sharaftoodii iyo milgohoogii iyo wanaagoogii oo weliba ay kuu dheeraato oo ay kuu si dheertay adiga hadduu bal mid aanay kuwan abtibayba u yihiin oo way dhaleenoo hablahoogii baaba dhalay kuwan qaar aan waxa laali waxay u yihiin baani jirin meel iska soo galaan baani jirin waa lagu garaabi lahaa laakiin si kaynantoodii soo maxayda oorka ku soo qaatay magaranaysaa ay dhabteeda kusoo ciyaarsiisay magaranaysaa ay dhabarkeega kusoo xambaartay magaranaysaa maxay ahaydey dee ay intaasoo dhan magaranaysaa booska hooyanimo magaranaysaa ay hooyadii sida fiicante ila nin walba hooyadiinba wax ka dhigtee adduunyada nin aanay hooyadii wax ka dhigin nin ma noqdo ragna lama falgalo ragna ma raaci karo ragna waxba lama qaybsan karo ma fahantay hooyoy la-aanta baa hore loo qaado suugaan lagu qaado ma fahantay hooyadu waa shay qaadaya dadkay hooyo kastaa ay ka beerantay ay kasoo jeedaana inay qaali kugu noqdaan oo magaranaysaa sidaad hooyadaa u jeceshay aad u jeclaato eheladeeda iyo qaraabadeeda iyo tolkeyga iyo qabiilkeyga waa sharafi karaama adduunyada haddii ay kaaga dhigto oo quriyaato uun abtirsiinta aabbahayo qoran raacaya oo waajibkii hooyanimo ay hooyadaa kugu lahayd ay ehelkeygu kugu lahaayeen qaraabadii kasoo jeedaa kugu lahaa tolkeygu kugu lahaa na aad daaqada ka tuurto doqonnimo waa maskax darro waa caqli xumo waxaan maanta dadka ku dhacay ee baabiyey ee sidan ka dhigay ee Soomaali dadka sheegto oo dhan dulliga ugu wacna wax kala maahee rixim goys miidhan bay dadka noqdeen oo qaraabo goys bay noqdeen oo xidid goys bay noqdeen oo wixii magaranaysaa
الحيرين كذي بان حيرين أو جور كي بروح النقطة معنا الضرر جور كي بروح النقطة جور أنا معنا ضدك أكتو ذاك الله هاي فاميليا دي ما أنت يسكوسني بروح النقطة فاميليا أن ملكيه جور كلها أن سومري أو مقرنسا قيمه جور كلها مقرنسا أن سومري وار جور كشيء قال لي هذا وح حلين تري ودمين تري علاق لبا قبيل أي مقرنسا اللي لفاه سوق قاعدين أيها إنن إنن سكوسده أي هردن أي مقرنسا نبدو نقول تري ولا بدا قبيل أي جور كوشين ترينو أي سكعفين ترينو أي مقرنسا ولا المدو دوس نقول تري ما أنت راح المريسا عقليش بداية أنت كمرة صهر فريستان أي أمتا أصوبا دقان وحا أي راحدان وإحنا هالكن كعاينا هو يوين كيو أي هالكن كيف لقادين أيو أنا هالكن مقنصا بحكي الشيقين أيو أنا مقنصا محيدي أسو بيشين أنا هو مقنصا عقليش بداينا مسكحش بداينا كراتش بداينا أقونش بداينا dadka marka inta aanad wax la hor iman ayaa gartaada cidlo lagu soo akhristaa anigu Facebook baan leeyahay markaan live-kan kaga jiraa kowda Soomaaliyeed Facebook-gan aan live kaga jiro kuwii aan la qabiilka ee aan ku abtirsanayay ee aan ka soo jeeday ee abahay ka soo jeeday كأوو أنجلي أو قريات دي مقناصة مجتمع يقولون دي يقولون معها وحي يقولون سومالي محمد الله حسابتي دوي دوين صاحبتي دوي دويني فرنس كي فيسبوك دوي دوين قبيلة أنا لهاي مجرد قبيل ور أهلكن يقول هذا دي وحي يقمدني كرامة يشرف يوم مقناصة يدي تحقلين يوم مقرنسا وناك إنان كوكفو إنان أفلقاديو وحانو مقرنسا دي آنو دي حدو لعلا مع الأنيق دي شخصي وخلطمو إنان شخصي قبيل كيسي لما آنو عايو وان هير كيسي لما آن مقرنسا محيدي قف قرياتو أو أنيق لما آن هيردن أو إلهي كرامي آن وأفلقاديو دو أيان درو وكرامة درو وعقل درو marka waxyaabaha kale waxa weeyaan waa dhaqan xumo waxay waxaan sababaynaa wax kale maaha dadkan Soomaalida la yiraahdaa burburkii wadankooda ku dhacay dagaaladii wadanka ka dhacay ay sababeen waxay sababeen in ay waxyaabo far badan ummadii ka dumaan oo ay ka baaba'aan ay waxyaabo far badan oo ay dhaqan iyo hidde iyo dhaqan u lahaan jireen ay daaqad ka baxaan oo ay sababeen colaadihii iyo dagaaladii sokeeye iyo kuwii dawladii militariga iyo kuwii migransa nooc walba ummadda uga soo dhexlac ayaa sababay kabacdi berigii hore waxa maxay hayday dhici jirtay dee maqaranaysa wiilka qalqaaliga iyo wiilka xishoodka badan layo wiilka wadaadka ah iyo wiilka miskiinka ah iyo dadku way kala duwanaayeen berigii hore oo maqaranaysa laba nooc bay ahaayeen gruuba nooc bay ahaayeen maanta waa la isku bayd iyo caynad go'a dadku way isku bayd iyo caynad go'eenoo lama kala saari karayo kii wanaagsanaa iyo kii xumaa iyo wixiiba wax isku noqdeen way isku walaaqmeen kabacdi waxa dhacday shaygan kubadda la yiraahdo ma aragteen waxaan ay dadku dee taageeraan kooxahan maqaranaysa reer Yurub ay taageeraan ayaa berigii ay wadankan dhulka Soomaalidu digtay ay soo galayeen daawashada maxay kubadda cagto ayaa waxa dadku soo gudbiyay oo u keenay in la daawado kubadda cagta dadkii sababay ee dadka dee waxaan soo dhexdhigay soo dhexgeliyay waxay ahaayeen qurbo joog bay ahaayeen dad intay qurbaha u dhoofeen wadanka dib ugu soo noqday
oo markay soo noqonayeen soo iibsaday muxuu ahaa fiidiyoyadan wax laga daawada iyo dhiishashkan iyo waxyaabahan dee santaleedhada ah ee wax lagu daawada ee ciyaaraha soo gudbiya dadkii markaa dadka u keenay kuwaasay ahaayeen kabacdi markii ay dhulkii kusoo noqdeen ay fiidiyoyadii iyo dhiishashkii iyo waxyaabihii ay keeneen ee ninka qurba jooga ah xaafadii uu deganaa ama uu deegaankii uu deganaa intuu ku rakibtay u damcay inuu daawado isagoo de nin qurbaawi ah oo maganaysaa dadkii nin baxay iskaga dhigayo oo nin adduunyo soo arkay iskaga dhigayo nin maganaysaa wax walba de maganaysaa caalam la soo qabsaday oo taxriifa iskaga dhigaya ayaa dadkii wuxuu u keenay waxaan dhaqankoogi hayn kabacdi waxaa dhacday dadkii in ay noqotay cillad oo magaranaysaa ay noqotay qofka aan kubadda cagta daawani maxay ahayd waa qof badawa oo reer miya in la isku caayo oo dadku isku caayaan la isku aflagaadiyo oo qof kastaaba ama ha garto kooxdu daawanayo ama ninka ciyaaraya ha garto ay ku qasbanaatay magaranaysaa mid camoola mid indhoola mid dagoola mid nooc walo ay dadku yiinba in kubadda cagta lagu soo wada jabo oo kooxihii cadaankee reer Yurub ee magaranaysaa Manchester Juventus maxay ahayd Liverpool nooc walba ay lahaayeenba magaranaysaa bal aad qiiraday dadka ka muuqatana aad yaabayso dee si baaxad loo bilaamiya dad aan kuuga ogeyn aad u waaranayso dee magaranaysaa ayaa waxaa dhacday in dee la isku caayo la yiraahdo arkani waa reer miya ciyaaraha adduunka lama socdo ma daawado kooxna ma taageero oo aad kooxda daawanayso maxaad ka istafiidaysaa maxaad ka faa'iidaysaa maxay kugu soo kordhinaysaa ma ku yaqaan ninkan aad taageeraysaa ninkan lacagtu kaaga baxaysaa miyuu ku ogi adduunka waxba adduunyada maxay hayday dee la isku taageeraa shirkadda iminka haddaad agabkeyga isticmaalayso waa inaad daman ku qabtaa shirkad haddaad labiskeyga isticmaasho waa inaad xayeysiiska aad labiskeyga isticmaalayso waa in maxay haydey ama discount ay kuu samayso ama magaranaysaa dee kambanigii waxaan soo saaray oo aad xiriir la leeday oo magaranaysaa aad macmiisheedii oo magaranaysaa muddo dee magaranaysaa aad markaa qaar ka hesho abaalmarino waxaan ciyaartooygan ay sidan dadku ugu waasheenna dee websaydyii kooxuhu leeyihin tiimanku waxay leeyihiin websaydyadu waxay leeyihiin fooman bay leeyihiin qalab bay leeyihiin foomankaasoo la buuxbuuxiyo faylalo waxay leeyihiin sharing wax la yidhaahdo oo magaranaysaa kooxda lagaga mid noqon karo oo dhaqaale lagu taageero oo marka qaar iyaga laftigoogu dee magaranaysaa taarabuunkooga ay wax kusoo celiyaan oo magaranaysaa dee waxyaabo fara badan ay magaranaysaa cilaaqaad fara badan ay sidaa ku kala faa'iidaan laakiin se haddii koox aan wax allaale waxay kuu soo kordhinaysaa aanay jirin aad 6 ilaa 6 aad u xiiqsanaato oo aad u dabaqsanaato dee waxa weeyaan waa waali nin caddaana oo aydan isku diinahayn isku dhaqanahayn markaa waxaan arrinkan uga socdaa ama soo qaatay bahalkan TikTok la yiraahdo imika soo baxay ay dadku aad ka isticmaalaan waxay noqotay kubadda cagta la isku caayi jiray loorin jiray qofka aan daawani waa reer miyi qofka aan kubadda la soconi ama koox aan dee ciyaartooy hebel aan garanayn waa reer miyo waxay noqotay qofka aan TikTok soo gelin ee aan ka caytamin ee ka aflagaadoon ee aan ummadda ka caayin aan magaranaysaa wax war oo kharaab lagu noqon jirayba aan la soo gelin maxay reer magaal maaha reer magaalnimadii waa waxay noqotay waxyaabihii laga xishoon jiray ayaa maanta lagu xaraboonaya ma fahamtay oo maxay ahaydey dee waxyaabaha TikTok-gan dhallinyaradii dhaqanka lagaga xumaynayo qofka damiirka lagu ka damqanaya shuruudaha isku xidhayaan waxyaabaha isweydaarsanayaan waxyaabahay oranayaan waanu ku wada ciyaarayna ee ay magaranaysaa baaquli soo qaado ku oranayaa madaxa geli baaquligu muxuu ahaa baaquligu waa baardigan suuliga la dhigo ee lagu istijoodo maaragtay kaasay ku oranayaan soo qaado madaxa geli suuliga intaad gasho baaquli soo qaado madaxa geli kabacdi haddaanad baaquligii soo qaadan oo aanad madaxa gelin
waa laga xirayaa abiya lagu leeyahay oo magaranaysaa waxaad fulin weyday sharciga TikTok iyo magaranaysaa website-ka iyo magaranaysaa ciyaaraha waxaan loogu talagalay qofku markaa waa inuu baaquli soo qaata baaldi soo qaata madaxa geliya shaandamiiro soo qaaday horanaya baashii baastada lagu meeri jiray shaandadahay tiiba horanayaan madaxa geli dis soo qaaday horanayaan madaxa geli waxay horanayaan bootar soo qaado wejiga marso waxay horanayaan dumarka kale waxay ku yiraahdaan inta kul soo qaado shaarba samayso inta kul soo qaado gad samayso ragoo kale waxay ku yiraahdaan lib soo qaado dibnaha marso maxay hayday malkhabad xidho maxay hayday maxaa la yiraahdaa adigu waxyaabo ilaah aad soconayso niyo meeshu ma cilaaj baa badad waalwaalan baa iskugu yimi kabacdi qofka wax dareemaya wuxuu dareemaya in waxaan nooc meel kristan Christmas xaqiisa wax ka yimi waayo diinta muxuu dadkan kristanka wax allaala iyo wax magaranaysaa de qabtaan jirinba oo waxa weeyaan free bay wax walba wax jirta wax walba xaqooga waa ka fasax wax walba xaqooga waa ka mubaax marka qofkii diinta lahaa ee dhaqanka lahaa ee tarbiyada lahaa ee akhlaaqda lahaa ee muslimka ahaa markuu waxaas kala dhex galo danin gaaleen muslim ma isku mid ma noqon karayaan kabacdi wuxuu qofkii muslimka ahaa ku qasbanaaday ilaa muslimkii oo ma samaysan waxaad kaga maaranta gaalkii oo baahidaadii aad maxay ku kaafido oo aad wax ku qabsato oo aad wax ku hagaajisto maad samaynay wixii gaalku soo samaystay ee uu soo sameeyay fasaadka uu soo sameeyay in dadka muslimka ku fasaadiyo waqtiga kaga rido cibaadad la'aan ku rido salaad nooc walba ku rido ayaad ku qasbanaatay inaad magaranaysaa adiguna aad wax rabooto kabacdi maxaad noqotay addoon baad noqotay addoonkii ilaahay intaad ka tagtay baad noqotay addoonkii gaalada ama addoonkii kufaarta kabacdi maxay kugu kaliftay idris lacabdi iyo waxay kugu kaliftay inaad hooyada macaan halka ka afrigatayso oo aad tiraahdo maxay hayday hooyadii baan caaya oo mid kale oo ka daran oo nacsan aad soo kaxaysato aad tiraahdo kaalay aad hooyada ilacay oo aad magaranaysaa shaashadaha aad u soo fariisataan hooyooyinkiina aad halkan ka afrigataysaan Social media,
نوعا افتياسو عاية افلقاتين هي دي سدحن فوحش نمض وافلقاتين يحلي فرحية كبيرة ooyada laftigeega ay daarood Ismaaciil aftiyaasheediina ay dhaleen bal sidii reer aftigeed iyo habaryaraheedu waa maasayday aqli xumadeyna in khudaad afrika diinsan
سبحانك يا عظيم. nimayo wixii caqliga looran jiray wixii garaadka looran jiray wixii bal nimayo hoohee dhaha dadku inay waasheen maanta joogaan ay dawaqeen qofkii la-aadka ahaa ee wax allaale iyo wax magaranaysaa muxtarama wax karaamo ah wax ixtiraama wax xishooda wax xurmo ah midnaba aan lahayn haddii la tixgeliyo la qiimeeyo والله سبحان الله.
waxaan hada halkan ka salaamayaa ummadan islaamka ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee asxaabteeda ee bulshada igu xidhan ah
yar iyo weyn iyo ciroore iyo qof yar iyo qof nooc walba leh rag iyo dumarba leh qabiil wal oo Soomaali ka koobantayba ilaahay ka dhaliyay ka soo kala jeeda walaalayaal oda dee waxa weeyaan cid gaari inay dee quluubtayda ma garanaysaa ay keli ku ahaato ma jecli cid walba milgaha igu leeday sharafta igu leeday karaamada igu leeday wixii hiil iyo hooba aan u qaban karo ee aan u muujin karo inaan u muujiyo baan jeclay sidaydaba kolba itaalkaygu wuxuyeyba waxa igu kalifay life inaan soo galo aaladda YouTube-ka anigoo ku jira oo warar iyo waxyaabaha damcay inaan adigu dee barnaamijyo kale iskaga dee isticmaalaya ayuu fiidiyowgan iga soo horbaxay fiidiyowgan baa iga soo horbaxay fiidiyowgani wuxuu igu sameeyey saameyn buu igu sameeyey ma garanaysaa damqasho wuu i gelgelay wuxuu igu sameeyey inaan ka damqado oo ma garanaysaa ka xumadoodo oo ma garanaysaa ka maxay ahaydey dee wusuu soo ma garanaysaa fiidiyowgii oo aan idhaahdo banimayo ma dadkaasay waxaasi sidaa suuragal uga noqdeen maxaa raggan ka sii ahaa maxaa sababay maxaa kalifay inay caynkan sameeyaan miyaa la soo sixra miyaa ma dee naxliga intaa leeg iyo ma garanaysaa doqonnimada intaa leeg xaggee kala yimaadeen kabacdi inaan live soo galo oo aan ka falceliyo oo aan live-kaygan fariin ahaan ugu diro ninkaa deeq la yidhaahda magaciisu halkaa ku qoran yahay ee wejigaana leh meel kastoo adduunyada kaga nooliyeyba fariintan aan halkan Facebook live-kayga aan uga dirayo ciddii gaadhsiin kartaaba waxaan ka codsanayaa inay ninkaa gaadhsiiso iyo ninkan kale ee idrisla cabdi la yidhaahda youtuberka ah ee wixii laga xishoon jiray ku xaragoonaya ku faanaya inuu hooyadii iyo abtiyaashii halka kaafligaadiyo ka caayo oo ma garanaysaa wuxuu doono ku sheego mar haddii dhalinyaro idina ayniya aad ma garanaysaa wax la ciyaaraysaan ama aad la tartamaysaan ama game aad la ciyaaraysaan hagoyn waxa la isku yahay bay ahayd suugaanta ku jirtay ya hagoyn waxa la isku yahay waxa la isku yahay ee ma garanaysaa dee aad isku tihiin dadka inaad garataan bay ahayd wada waxaan halkan anigu shakhsiyan aan xaal iyo boorashays aan uga dirayaa dhammaan beelweynta meel kastoo ay adduunyada dacaladeeda iyo dalkaba ay ka kala degaan qabiilka weyn ee sharafta leh ee karaamada leh ee milgaha leh ee daarood ismaaciil reer ismaaciil jabarti ayaan halkan leeyahay abtiyaal xaal qaata rag iyo dumar yar iyo weyn meel kastoo aad joogteen nagama istaahishaan inaan naaskiina soo jaqno oo aan calooshiina soo huridno oo aanu dhabarkiina maxay ahaydey soo fuurno oo aanu dhabkiina kusoo ciyaarno oo aanu maanta annagoo ilbaxisbidayna oo aanu magaranaysaa qabiiladii aan ku abtirsanaynay ku faanayna inaanu social mediaha cay inila soo fariisano iyo afligaado nagama geydaan laakiinse doqmahani hadday ay abtiyaashood u quureen waxaa abtiyaar waxaan mooda qabno waxaan kooda simanayna maaha waxaan arrinkan uga soo falceliyey ee igu kalifay inaan magaranaysaa aan dareenkayga ka dhiibto way idamaqda waayo agteeda qiimaad ku leeyihi sidaan kuwan ka dhashay ee aan ku abtirsado ee aan kasoo jeeda qiimaha agteeda ay uga leeyihiin ayaad abtiyaashay oo aad agteeda qiimo uga leedihin meel kastoo aad ku nooshiin meel kastoo deegaankeenu yahayba aad muxtaram iyo ixtiraam iyo xurmo iyo xibsood iyo tixgelin ba aad ugu leeyihin marka abtiya iyagana waxaan fariin ahaan ugu diraya nimayow dhalinyaranima ma lahayn qaaday waxbaa inaga sin noqday dadkina fiyus raadis wax la yidhaahdaa waale
nimayo abtiyaashiin iyo reer abtigiin meel baad kaga dhacdeen waxaan iniga suuragal ahayna waad u quudheen waxaan ma garanaysaa ciribtiina dambe iniga hadhayna oo ma garanaysaa fiidiyowyale oo social media sidaa u dhex wareegaysa oo ma garanaysaa boog inigu noqon doontaa kaad dhashaana ku noqon doonto kuwaad sii dhali doontaana ku noqon doonto taariikh iniga hadhan noqon doontaad samayseen imikaad dhowdhowdiina xaal ka bixiya afartaynana yaryarayni laaleegaynila midkaahi yaana inii muuqan waxaan kaa horeeya ee kaa soo horjeeda ee aad sharafteedii iyo xurmadeedii iyo xishoodkeedii iyo xayadeedii aad ku ciyaaraysaan waa hooyooyinkii waa habaryarihiin waa abtiyaashiin waa ilmaabtiyadiin waa habaryodaagyadiin haddii hal dhan oo qoriyaata aad wax ka eegtaan oo aad ismoodeen inay nagu filaanayaan oo idinkafaynayaan ilmaadeeradiin maxay ahaydey dee familigii aabihiin oo qoriyaata idinkafaynayo oo intaas qoriyaata aad isku bixinaysaan dad horea isku bixin laha dad hore intaasoo qoriyaati kafayn lahayd labada faamiliga qofka bilaadanka kasoo kala jeedana sideedaba lama maxay ahaday dee ilaahay baa sababay oo ilaahay baa kuu beeray oo lagama maarmo labada faamiliba midba meel buu kaaga yaallaa midba meel buu kaa xigaa midba meel buu milki kaaga leeyay midba meel buu abaal kaaga leeyay haddaad hal meel isku koobtaan waa caqli xumo haddaad xaqii hooyadiin inagu lahayd ee xurmo lahaa ee xishood lahaa ee ixtiraam lahaa ee xayo lahaa aad meel kaga dhacdaan oo aad xasuusan weydaan qiimihii iyo qaayihii ay agtiina ku lahayd waa waxa na damqay ee annaga nagu kalifay inaanu falkiina ka fal celinaa nala mid baatiina waa waxa aynu soo wada marnay magaranaysaa dee xurmadaa laynagu wada leeyay aada meel kaga dhacdeen weeyaan dad aan inaga istaahilin oo aan iniga qalmin inaad aflagaadaysaan oo aydaan laga yaababa aqoon durugsan inaydaan uba lahayn war soomaali maxamed dadka la yidhaahdo haddii run la isku sheegayo gubta soomaali waa daarood beenna maataas dadka haddii la leeyahay soomaaliya gubta soomaaliyeed waa daarood ismaaciil weligeedba soomaali ha iska xagxagato ha iska aflagaadayso ha iska caycaydo waxay doonaan baa ku sameeyaan ragga soomaali taariikhda ku dhex leh ee magaranaysa taariikhda soomaaliyeed buugga ku qoray ee taariikhda soomaaliyeed suugaanta iyo diiwaanka ka galay waa daarood ismaaciil hadday xukun ay wax xukumaan tahay hadday suugaan ay maxaday gabayo suugaan la isticmaalo ay tahay haddii ay tahay boqornimo ay tahay haddii ay tahay dad xukun ay tahay haddii ay tahay gaangistirnimo ay tahay haddii ay tahay magaranaysaa libaaxnimo ay tahay adeer soomaali dadka la yidhaha lambaroonkooga waa daarood ismaaciil ilbaxooga waa daarood ismaaciil ma fahanti wayna yihiin oo abtiyaashay waa dad soomaali madaxooga weeye farahooga weeye muuqowga weeye ninka ragga saasoo abtiyaasha adeer waa maaga doqonkuna waa idinkoo miidhan oo dee cayiya aflagaado kuwaan ka dhashay ina cayigama mudna kuway dhalayna cayigama mudna adeer ma fahanti 7 jeer bay hooyadin inagu leedahay xurmo iyo dee maxay ahaydey xaq inagu leedahay oo layidhi 7 jeer bay aabbaha xaqa dheerta hooyada haddaad markaa garan weydeen xaqii hooyadii oo ay noqotay maanta inaad social media intaad usoo fadhiisataan halkaa aad ka aflagaadaysaan hooyooyinkiina oo tidhahda caynkaa iyo caynkaa iyo cayn nacasnimo weyn baa inaga dhacday nimayo ee waxaan idinka codsanaya inaad sida ugu dhaqsaha badan leh falkaa aad samayseen raaligelin degdeg aad kasoo bixisaan oo weliba boqorka daarood ismaaciil ee fadhiya maxay ahayd meeshii magacii wuxuu fadhiyaa puntland maxaa la yidhahdaa meeshii xaggaa ka xigtay
deegaanka Puntland buu boqorka guud ee daarood Ismaaciil fadhiya meesha doontaan baka keena xaal boqorka ducada soo weydiista inuu nii duceeyo oo magaranaysaa karaamadii agtiyaashiin lahaayeen iyo magaranaysaa dee si aad u noqotaan awlaad barakaysan aad u noqotaan oo awlaad tafsiiranta aad u noqotaan oo awlaad kasii beeranta aad u noqotaan oo dee magaranaysaa dad magaranaysaa duunyada iyo aakhiriya adduunkaba ku magaranaysaa aflixaad u noqotaan oo ducada agtiyaashiin aad kala hadhaan si uu boqorku iniigu soo duceeyo arrintiina ilaa boqorka codsiga u dirta boqorka daarood oo ergaha layniigu tago oo boqorku haynii soo duceeyo oo aflagaadada aad samayseen hayniiga soo duceeyo oo ducada boqorku hayniigu dhacdo haddii kale waxa weeyaan de waxa weeyaan caadad u waalanaysaa oo khadkaad caadi uga baxaysaa oo daandaamaysaa markaa waxaan aan ka hadlayaa waa wax waajib igu ah waxa weeyaan aniga agtayda qiimay ka leeyihiin deegaan waloo abtiyaashay ay deegaanba waa iga mudayin inaan u sara kaco inaan u hadlo wixii ceebtooda iyo xumahooga iyo wanaagooga diidanna inaan runta u sheego waan jecelay wayna iga istaahilaan abtiyaashay meel waloo ay degaanna ilaahay ku nabadgeliyo ilaahay ummadda kale Soomaaliyeedna sidaas la mid ah ilaahay meel waloo ay qof waloo Soomaaliya ama qabiil waloo Soomaaliyeed mid degan ilaahay ku ammaansan oo ku nabadgeliyo waxaan markaa dardaaran leeyahay dhalinyaradan xaal arrintaa ka bixiya dhalinyarada kale Soomaaliyeedna waxaan leeyahay imayo qabiilad waxa la yiraahdaa naf male qabiil waxa la yiraahdaa naf male qabiilka qofka bilaadanka ah wuxuu reer hebel yahay ama uu qabiilka yahay waxa weeyaan waa cimriga yara gaaban oo adduunyada ku nool yahay 40 sano iyo 50 sano iyo 60 sano ayuu qofka bilaadanka reer hebel yahay ama uu qoro sheeganaya ama qabiil sheeganaya ama cid gaar ah sheeganaya laakiin marka adduunyada ka haajiro waxa qabriga marka la geeyo lagu aqtirinayo waad garanaysaa qofka waa in hebel lama yiraahdo in hebel ayaa la yiraahdaa xabaashi marka qofka la geeyo magaca hooyada ayaa diiwaanka xabaasha qofka laga qoraa aakhiro marka la soo saarayna isagoo in hebel ayaa ku soo baxa qof darajada intaa leeg buu ilaahay abtiyaashi siiyay iyo hooyo macaan ma fahantay markaa meel baad ka dhacdeen xaal ka bixiya oo aflagaadada sameeyeen xaal ka bixiya oo magaranaysa gafgaad sameeyeen xaal ka bixiya oo dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed ay nigu dayan leeyahay akhlaaqda iyo edabta iyo xishoodka aad ka xumayn lahaydeen uga digay inaad khalad sameeyeen gafteen wixii aad ku kacdeen inay ahayd wax magaranaysa meel ka dhaca abtiyaashin aad meel kaga dhacdeen umaamadii aad dhulka iskaga tuurteen arrintaas khalad nigu ahayd marka arrintaas khalad bay nigu ahayd fiidiyowgan intaas soo gabagabeynaya fariintayduna sidaas ahayd wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh